The gentleman who was here before me is Hadlay Nana. He's a member of our parliament, Somaliland Parliament. He's elected member of the parliament. Hadlay Nana is one of those, what do you call, veteran contributors to the welfare of the Somaliland population in general. There are streets and roads that are named after him because he will start with $100 donation, speak on the TV, tell everybody to contribute to something. So he's a guy who is a gentleman, who is known for that quality. And what he basically said, I am coming from a district that doesn't receive any water from the current water supply at all. So we are praying for the chairmen to do better in whatever they do, of course. And we are thankful for their support. And one day, hopefully, we will be, enjoying bad water and clean water. Yes, hopefully. That's what he said. The elder before him is Haji Abdi, the elder before him with the red beard. He is also somebody who is highly respected in Somaliland. He is called the third person of Somaliland. That's the title that some people have given him. He is very good at giving very inspiring speeches, which everybody likes, of course. So what he said, of course, whatever chairmen do, they never leave it unfinished or uncompleted. Whatever they do, they complete it with super quality. That's what he said, of course. And now we're very happy that the chairmen are involved in the water project. We can have trust in it now. That's what he said. So basically, thank you for coming in, of course. And if I stop quoting the member of parliament and also the elder, Haji Abdi. Haji Abdi is also a member of the community mobilizers. We have 5 community mobilizers coming from the 5 different districts for Hargeysa. So basically, he's someone who is very resourceful, of course, with people. And of course, our contractor, our consultant, both coming from Germany, will have a very good time and are in good hands when they are working with such highly respected elders, of course. And haddana hadalkayga ugu imaado waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhammaan marti sharafka halkan ka soo qayb galay ay ugu horeeyaan mas'uuliyiinta qaranka ugu sareeya ugu horeeya madaxweyne ku-xigeenka Somaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryaalka Engineer Faisal Ali Waraabe iyo waftiga sharafta badan ee inooga yimiday wadanka Jarmalka uu hogaaminayo His Excellency the Special Envoy of the German Chancellor for Africa or Special Representative uu hogaaminayo His Excellency wakiilka ra'iisul wasaaraha Jarmalka u qaabilsan Africa oo ay ku jiraan Mr. Marius oo ka tirsan safaaradda Nairobi ee Somaliland iyo Soomaaliya Andreas Holcott oo ah ninka geeska Africa uga mas'uula bangiga horumarinta Jarmalka ee loo yaqaan KFW oo ah kan maalgelinaya mashruucan bangiga KFW iyo dabcan lacagtu ka imanayso dawladda Jarmalka laakiin cidda uga mas'uula dawladda Jarmalka uu yahay Hendrik oo ka socda hay'adda GIZ iyo Miss Amaya oo iyaduna ka socota waftiga la socota of course markaan intaa kaga gudbo labada qof ee ka sii horeeya ajnabiga ayaa halkan ka hadlay midna wuxuu ka socday shirkadda hawsha fulinaysa ee qandaraas ka guuleysatay oo ah shirkad Jarmal ah oo caalamka oo dhan ka shaqeysa magaceedana la yiraahdo Ludwig Pfeiffer oo LB loo yiraahdo shirkadda hawsha fulinaysa hawsha biyaha Hargeysa ma aha Beeb kalaata waxa ku jira 4 kaydoo waaweyn oo laga dhisayo degmooyin kala duwan ee magaalada haday tahay halkan mid laga dhisi doona degmada Axmed Dagax Maxamuud Haybe iyo Gacan Libaax marka waxa ka baxaya meesha baahidii hore jirtay ahayd in biyaalkan lagu soo shubo kadib dhexda intaan la gaadhin badoo Hargeysa ay biyo badan halka ku si baabaan taas meesha ka boodo ninka labaad leeyahay ninkii raayis qurux badan u labisnaa ee suulka qurux badan xidhnaa Mr. Nicola the elegant guy isaguna wuxuu ka socdaa shirkadda hubinaysa tayada oo ah shirkad la yiraahdo maxaa consulting engineers Salis Gitter oo ah CS iyaduna waa shirkad kale oo Jarmal oo caalamka oo dhan ka shaqeysa mashaariicda engineering-kana ka shaqeeya marka shirkadaha inoo shaqeynaya shirkada ma aha meel banaan ka yimiday waa shirkada caalamka soo shaqeeya Europe ka shaqeeya meel walba ka shaqeeya shirkada waxay qabtaan lagu yaqaan weeyaan shirkadihii habeen lagu abuuri jiray ee waxay doonaan sameyn jiray maaha taas waxaan sheegayaa si dadku u fahmaan yaa shaqadan inoo haya haday dawladda tahay roolkeedu muxuu yahay dawladdu maamulka qayb ay ka tahay laakiin wax lacag iyo hadalka loo dhex maraya dawladda
ma jiro waan dareensanahay dadku marka la dawladda waxa maamulaysa su'aalo badan bay isweydiiyaan laakiin dawladdu qayb bay ka tahay hawshan qayb muhiimana way ka tahay laakiin cidda inoo maamulaysa waa hay'adaha Jarmalka ay hawsha fulinayaan inaguna la xisaabtankii iyo maamulkii hawsha ay naga sugayaan mashruucani muxuu yahay mashruucani waa weelkii Hargeysa gudaheeda lagu cabi lahaa weelkii Hargeysa gudaheeda lagu cabi lahaa inoo suuro gelin lahaa in magaaladu dhamaanteed ay hesho biyo ku filan wixii soo gaaray in si cadaalad ah loo qaybsado Axmed Dhagax biyaheeda halka lagu shubo halka laga qaybiyo Maxamuud Haybe saas laag degmooyin kalena saasiga gacan libaax iyo koodbuur ay ka mid yihiin 26 June marka matala markuu kaydku halkan biyuhu ku soo dhacaan marka barkada laga dhisayo alhuda oo ku taala xaafadda Axmed Dhagax ay ku sii socoto beebka u dhaxeeya dhexdiisu talaal ma laha biyana kama baxayaan marka biyo halka gaadhaan ba halka distribution-ka laga sameeyay marka waxa ka baxaysa baahidii ahayd suuqa hoose godan ee ganacsatada ku badatay iyo ganacsiyada waaweyn ay biyaha ku hakan jireen taas ka baxaysa marka cadaalad baa meesha imanaysa markuu systemkani guuleysto waan ognahay mushkiladda ugu weyn ee Hargeysa isku sheekayn mayno waa biyo inkastoo Soomaaliland ba ka simanto wasiirka biyuhuna uu wax badan ka oran doono haddaba Hargeysa ah meel buuraley oo dhagaxa oo aanu garanayno dadkeenna dhulka inay aad u jecel yihiin wadooyinkii ay dhex degayaan duruufeenu ay badan yihiin waxaanu ku dhameyn karnaa hawshan haddii iskaashi buuxa dhammaan hay'adaha dawladda kala duwan oo la oran waxaan wakaaladda laqlaqanaysa wakaaladda wadata dawladda hoose wadata cid gaar ah wadata aan dhamaanteen ka wada hawlgalno mid yar mid weyn dhamaanteen hay'adaha dawladda saas ma ku fulaysaa haddii kale suuragal ma aha hawshan inay fusho ana maareeyo wakaaladda biyaha saala iskaashi wada shaqayn buuxa nin kastaaba inuu lahaanshiyo inuu muujiyo lahaanshiyo iyo inay xil ka saaran tahay hawshan baynu ku fulin karnaa hawshan taasi waa mid weyn mashruucan wuxuu dhisi doonaa ilaa 150 kilomitir oo beebka loo yaqaano nooca distribution-ka ee biyaha laga qaybiyo xaafadaha dhexdooda waxa ku jira ilaa iyo 12 kilomitir oo kiibarkadaha u kala qaadaya weynaaya waxa ku jira 4 kaydoo kala duwan oo ku yaala waxa ku jira laabkii biyaha lagu eegi lahaa tayadooda iyo treatment plant-kii iyo halkii lagu daweyn lahaa marka la daweyn ama dawo lagu darayo iyo laabkii biyaha analysis-keeda lagu sameyn lahaana qayb bay ka yihiin hawshan waxa kale oo qayba sidoo Xuseen Meeyarka Hargeysa fayadhowrkii caasimaduna qayb ay ka tahay mashruucan qaybtaas waa qaybta hore qaybta labaadna waa wasaaradda horumarinta beeraha maamusho waa carro joojinta iyo hawlo badan caynkaas oo aad u muhiim ah iyaguna oo qayb muhiim ah wasiirka beeruhu halkan u fadhiyo hay'adaha Jarmalku iyo dawladda Jarmalku uu ka dhawaajiyay meeyarka caasimaddu si fiican buu u taabtay waxa weeye wixii ay qabanayaan oo wax la taaban karo waxa buubaha tigidh ku baxaa ma jiraan nimankaas haddii aynu si fiican ula shaqeynano wayna la shaqeynayaan haddii la shaqeyn weynana nacnacdeena dhageysan maayaan waad mahadsantihiin way iska tagayaan wadamo badan oo Afrika ah oo Puntland ugu dambeysayna way ka dhacday hawshaas marka inaka Soomaaliland waxa looga baahan yahay shaqo nadiif ah oo toos ah ayaa waxa la nooga baahan yahay taas weyn haddii aan intaa ku soo goobo hawshan biyaha oo waxaan kaloon xusi lahaa European Unionka oo mashruuca geedibla gacanta ku haya sanduuqa horumarinta Soomaaliland hay'adda Coca-Cola Africa Foundation oo jecelahay Axmed Ismaan Goyle oo iyaguna qayb ka ah inay halkan fadhiyo iyo World Bank-ka hay'adda GIZ bangiga KFW dhammaan waxay qayb ka yihiin mashruuca biyaha Hargeysa laakiin mashruuca biyaha Hargeysa waa qaybo kala duwan oo markay wada dhameystirmaan biyuhu soo baxayaan biyuhuna ma aha sida waxbarashada haddaan Englishka xogaa barto aan ku hadli karaa laakiin 100% ma baran haddaan tababar kala qaato driving-ka xaafadda oo dhex wareegi karaa laakiin ma aha haddaan dhameystirnaa waxba qaban karin biyuhu marka mashruuci uu dhameystirmo bay qasabada ka soo dhacayaan Soomaal garan kulli mashaakilka biyaha Hargeysa dhacay ee maanta maragma doontiin waxay qorshaha Hargeysa oo dhameystirnayn in aad looga hadlay qorshaha biyaha Hargeysa oo dhameystirnayn in aad looga hadlay horta mushkiladda taala Hargeysa dad badan ama faan oo la waxani miyaan u dhamaanayn goormuu dhamaanaya iyadoo bilow tahay in aad loogu qayliyay ayaa jirtay tay dadku dareemayaan runtii aan ka dhawaajiyo waa taas annaka wakaalad ahaan iyo hay'adaha la shaqeeya waxaan naga go'an hawshan aan hayno inaan u gudano si la xajacla ku jirto si wadaniyeed ku jirto si daacadnimo ku jirto oo daacad ka nahay wixii karaankayaga runtii waxaanan ku faraxsanahay in hay'adaha la shaqeeya ay noqdaan qaar ku dhiirigeliya shaqaalaha in shaqadooda kor u sii qaadaan ee qolada Jarmalka ugu horeyso marti sharafkaan mar labaad u mahad celinaya halkan aan ku soo koobaya waxaan oran lahaa un kelmad yar wafdigeena la joogta I would like to welcome the delegation from the German government led by His Excellency Mr. Günther Noog, the special representative of the German Chancellor to Africa, who is coming his first time to Hargeysa, Somaliland. And for him to be doing so, to be here with us today, shows a real progress. يعني إنه وفدك إنفويقاس إنه لا تشوفه وكيل كا Günther Noog ما تينو هالك إنه لا تشوفه لفتة هرمر يوناك بدن أي موتشين إيسا. Also a part of his delegation is Mr. Marius, who is a member of the German embassy in Nairobi for Somaliland and Somalia, and also Mr. Andreas Holcott,
the regional director of KFW, who maybe one day will give him a nationality of this country. Huh? Yes, absolutely. Hendrik and our respected colleagues from GIZ. GIZ, who is also working with us alongside KFW in a very valuable project. You are here today for the launch of the Hargeysa Water Supply and Basic Sanitation Project. The expectation on this project is very high. And you can see the expectation on the people. You know, be a chairman in institution is being part of this project, or the German government, German taxpayers funding this project, confidence to our people, because they understand that Germany is very good and it's one of the world's leading powers and good at engineering, distinguished in engineering, whatever they do, of course. So that, I would like to thank you as Hargeysa Water Agency, or as the government agency who is entrusted with this project. We would like to assure you that we do our best to make sure that this project delivers, that we respect the rule of law, transparency, accountability, and full collaboration with our partners from Germany. Of course, I understand your colleague, the members of KFW and the German embassy have briefed you that the contractor is, of course, a German company. As well, the company who is doing the supervision is a German company. So also, it's something we're very happy at. And also, we are happy that Germans are in Hargeysa and comfortable in Hargeysa, working in Hargeysa, and in our city, of course. That's also a real pressure for us. So thank you, everybody. Thank you for being here with us.